wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo howlo shaqo ku jooga gobolka Togdheer ayaa maanta kulan la qaatay ugu dardargelinaya diyaargarowga koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo dhawaan ka bilaami doona gobolada Togdheer iyo Awdal. Kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer kan degmada iyo waliba rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer iyo maayirka magaalada Burco halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay sidii ugu diyaargaroobeen qaabilaada gobolada martida u gobolka Togdheer. maanta martaa la inoo yahay 8 gobol 7 gobol oo ay Burco tii 8 ku tahay halkan marti inoogu noqonaya waxa la inooga baahan yahay kaalinteena ka soo baxno in aynu si wanaagsan u marti gelino si wanaagsan ula dheelo si wanaagsan soo dhaweyno laakiin nasiib baynu helay inagu hadii aanu hay degmada Burco marka waxay noqonaysaa inaynu si wanaagsan oo raganimo leh u soo dhaweyno shirkadaha qaabilay oo kharashkii in badan naga qaabileen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qoliyaha ganacsiga oo ay hogaaminayso rugta ganacsiga. Wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa uga mahad celiyay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sidii xilkasnimada iskaga saareen qabanqaabada iyo diyaargarowga ciyaaraha wareegga gobolada Soomaaliland. qorshihii aan la nimid ee ahaa ciyaaraha gobolka lagu qabanayana isaga iyo ganacsatadii Burco way naga aqbaleen aad iyo aad bay nooga aqbaleen way naga qaateen inay marti galiyaan ciyaaraha gobolka Togdheer qaybahooda kala duwan aan u soo bandhigno martigelinta ciyaaraha gobolada qaybta bari la socda ciyaaraha gobolada Soomaaliland sanadkan intaan ciyaaraha rasmiga la qaban waxa lagu kala reebi doona gobolada Togdheer iyo Awdal. Gobolka Togdheer waxa ku ciyaari doona 8 gobol oo ay kooxda Togdheer ka bilaabmaya ilaa wax way baran waxaana laga rabaa inay ka soo baxaan 4 gobol xaga kalena 4 baa ka soo bixi doona 8daas wax way si rasmi ah ugu ciyaari doona caasimadda dalka Soomaaliland Hargeysa. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo wafdiga hogaaminaya ayaa ku soo maray 3 garoon ay dawladda hoose Burco ka helinayso gudaha magaalada Burco. Maayirka magaalada Burco ayaa ku sheegay garoomada magaalada Burco waxaan magaalada Burco ka hirgelinay 2 garoon baan diyaarinay. garoon waa garoonka aanu joogno garoonna waa garoonka imikaanu ka nimay Maxamed Cali. labada garoonba waxaan ugu talagalay kubadda cagta in lagu ciyaaro. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland iyo dawladda hoose degmada Burco uga mahad celiyay kaabista iyo waliba horumarka dhalinyarada gobolka Togdheer. aad bay u mahadsan dawladda hoose golaha deegaanka garoomada ay maanta ay nageeyeen waa kuwa ay ugu talagaleen in dhalinyarta ay ku ciyaarto. garoonkani waxa la oran jiray meeshan balliga cas aan ku wargelinayna inay basketball iyo volleyball ay u sameeyaan garoomada waliba naqshada anagu aan u keenno tarafno ah inaanu joogno garoomo kamida magaalada Burco oo golaha deegaanka oo hogaaminaya maayirku ay ku wareejiyeen wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha qorshahana ugu jirta inay dhisaan oo ay ku wareejiyaan darbiga sanadka 2016. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxa uu kormeer ku tagay xarunta daryeelka iyo ilaalinta derbi jiifta ay hoydaan ee magaalada Burco ee Soora. Xildhibaan Bidhi oo ah maamulaha xaruntan ayaa wasiirka uga mahadnaqay kormeerkiisan. xaruntii aan ku faraxsanay oo u mahadnaqayna wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dalxiiska iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha sportiga oo naga jiibay inay xaruntan soo boqdaan dhalinyarada. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ayaa iyaguna xukuumadani ku tilmaamay mid jecel oo ilaalisa baahiyaha agoomaha derbi jiifta iyo dadka jilicsan. ka si fiican baan ka rajaynaynaa inaad u sii annaguna waxaanu wasaaradahan xagga sportskana waan ka caawinaynaa xagga maxaan ku rahdaa xaqalciid yarna waanu kugu dhiibi doonaa haddii alla ilaa waxaan arinta aad iyo aad uga mahad celinayaa arintaasi ay xasuusisay maanta say u egtay aad aragtaan waxa weeye wadiya caruurtaasi xarunta agoomaha Hargeysa ku jirta iyo maalinta dhifran weyn baa runtii u dhaxeeya dadaalka waxaan isleeyahay xukuumadan ayaa shaqo weyn ka qabatay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa marwada koobaad qaranka Amina Sheekh Maxamed Jirde oo waxa weeye u guntatay caruurta dayacan iyo agoomaha iyo kuwa darajirka inay shaqo ka qabato. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco. Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Adam Sakrood bishii ka madaxa banaanay Soomaaliland Space Channel magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer.